beesha xawaale oo Al-shabaab ka diiday dalab kaga yimid cadaadis xooggan oo saaran kooxdan iyo xogta gulufka socda. Beelihii ugu badnaa ee deriska la ahaa gobolka Hiiraan oo hub ka qaatay si ay deegaanadooda uga xoreeyaan kooxda Al-shabaab. Sheergareeya muuqaalkan oo ku faafiya guruubyada sidoo kalena meel walba gaarsiiya. Warbixinteena maanta ee Hoggaan News waxaan ku faahfaahi doonaa calaacalka iyo jabka kooxda Al-shabaab oo bilowday iyo beesha xawaale oo ka diiday wadahadal. Culayska dagaalka uga furan gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe oo kordhay. Balse si aan u gudagalno warbixintan oo faahfaahsan, marka hore muuqaalka like saar, sidoo kalena ku soo biir saaxiibada ku xiran Hoggaan News si aad mar waliba u hesho xogaha xaqiiqada ku saleysan. Mahadsanid. Waagaag aynu ku bilownay beesha xawaale oo ka mid ah beelaha bilaabay dagaalka ka dhanka ah kooxda gobolkeeda uu sii dhacayay Al-shabaab ayaa markii ugu horeysay iska diiday dalab kaga yimid kooxda, waxaana dalabkaasi uu yahay in beesha xawaale ay wadahadal la gasho kooxda Al-shabaab. Kooxda ayaa soo dirsatay erge fara badan iyaga oo sidoo kalena taleefanno ka soo wacay nabadoonnada beesha xawaale, waxa ayna sheegeen in markan ay wadahadal diyaar u yihiin, wax walibana ay ku dhammayn doonaan miiska wadahadalka. Sidoo kale kooxda Al-shabaab ayaa ergadii ka socotay waxa ay sheegeen in ay bixin doonaan magta dadkii ay dileen iyo xoolihii ay ka qaateen shacabka reer Hiiraan, kuwaas ay ku sheegi jireen sakawaadka, balse muhiim ay tahay in la joojiyo dhiigga daadanaya ama dagaalka u dhexeeya kooxda Al-shabaab iyo beesha xawaale. Laakiin warkaasi waxaa ku gacan seeray ugaaska guud ee beesha xawaale iyo guud ahaanba nabadoonnada, iyaga oo sheegay in markan aysan xawaale jirin wax u caynsan, keliyana ay Al-shabaab ku kala bixi doonaan dagaal. Meel walba oo beesha xawaale degtana ay diyaar u yihiin in kooxda Al-shabaab ay iska difaacaan. Waxaa markan ay u muuqataa in kooxdu ay dooneyso wadahadal ay la gashay beelaha Soomaaliyeed, iyadoo arrintan ay imaaneyso iyadoo dhowaan gobolka Shabeellaha Dhexe qaybo ka mid ah kooxdu ay soo direen odayaal ay ku sheegeen ergo, kuwaasi oo loo soo diray beesha Abgaal, waxayna kooxda xilligaasi ballan qaaday inay ka baxayaan guud ahaanba deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe balse la nabadgeliyo. Kooxda Al-shabaab ayaa 10kii sano ee ugu dambeysay waxa ay maamuleysay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, dhul badan oo halkaasi ama gobollo badan oo ku yaala halkaasi, waxaana markaan ay u muuqataa in shacabka Soomaaliyeed kaliya ay ka adkaadeen kooxda, sidii loo maleynayana aysan ahayn. Gobolka Hiiraan waa meeshii ugu horeysay ee kooxda Al-shabaab ay dadka Soomaaliyeed kula dagaalameen, iyaga oo ka qabsaday deegaano fara badan. In kooxda Al-shabaab ay calaacasho iyaga oo weliba sheegaya in ay dhiibanayaan wixii ay hadlayeen magtooda, waxay ku tusaysaa in aysan kooxda awood badan lahayn marka loo eego sidii shacabka Soomaaliyeed ay uga baqi jireen. Waxaana markan beel walba oo Soomaaliyeed ay u soo jeesatay in ay dagaal toos ah la galaan kooxda Al-shabaab. Calaacalka ka imaanaya kooxda Al-shabaab gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Hiiraan ayaa waxa uu imaanayaa xilli dhammaanba shacabka Soomaaliyeed ama qabaa'ilada deriska la ah gobolka Hiiraan, si gaar ah gobolada Shabeellaha Dhexe, Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha Hoose ay kaceen, waxa ayna bilaabeen dagaal ka dhan ah kooxda Al-shabaab iyaga oo magaalada Muqdisho ku qabsaday shirar kala duwan, kuwaas oo ay ku sheegayaan in ay la dagaalami doonaan Al-shabaabka ku sugan deegaanadooda. Dowladda Soomaaliyana waxay ballan qaaday inay garab istaag toos u muujin doonto. Beesha xawaale waxaa lagu xusuusan doonaa in ay noqotay beeshii bilowday halganka looga soo horjeedo kooxda Al-shabaab, kaasi oo la doonayay in guud ahaanba looga xoreeyo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada dalka, iyadoo ay xusid mudan tahay in dowladda Soomaaliya ay u muujisay garab istaag toos ah. Waxaana gobolka Hiiraan laga dejiyay ciidamadii ugu badnaa, iyadoo halkaasi la geeyay hub fara badan, iyadoo xitaa saraakiisha ugu sarsareysay ciidamada qalabka sida iyo wasiirka gaashaandhigga ay weli ku sugan yihiin gobolka Hiiraan si ay dhiirigelin ugu sameeyaan ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka ee dagaalka kula jira Al-shabaab. Jenaraal Odawaye Yuusuf Raage oo iska casilaya xilka taliyaha ciidanka xoogga kadib markii uu madaxweyne Xasan Sheekh Mahad u dhiibay istiraatiijiyadda dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-shabaab, waxa uu yiri Mahad waxa uu doonayaa in uu laayo saraakiisha ciidanka xoogga ee dhalinyarada ah, daacadna kama ahan dagaalka Al-shabaab lagula jiro. Sheergareeye ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casilayo xilka taliyaha ciidanka xoogga kadib markii uu madaxweyne Xasan Sheekh taliyaha Niise Mahad Maxamed u wakiishay istiraatiijiyadda dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-shabaab. Taliya Odawaye Yuusuf Raage ayaa sheegay in Mahad uu doonayo khaarijinta ama in uu laayo saraakiisha dhalinyarada ah ee ku jira ciidanka xoogga iyo kuwa dadka deegaanka ee kooxda Al-shabaab kula dagaalamaya deegaano badan oo ka mid ah gobolada dalka.
Odawa ayaa sheegay in Mahad Salaad uusan daacad ka ahayn dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab, sidoo kalena uu si hoose ula shaqeynayo maleeshiyada kooxdaasi. Waxa uu sheegay Jenaraal Odawa Yuusuf Raage tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheikh uu istiraatiijiyadda dagaalka ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab ku wareejiyay taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad, in ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka ay jab kala kulmeen dagaaladii ay kooxda Al-Shabaab kula galeen deegaano dhaca gobollada Hiiraan iyo Galgaduud. Sidaas daraaddeedna danta ay ku khasabtay in gebi ahaanba uu iska casilo xilkii uu hayay ciidamada xoogga iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay inuu digniin u dirayo dhammaanba saraakiisha ku jira ciidamada qalabka sida ee dhalinyarada ah, maadaama uu dhagar u maleegayo taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad, kaasi oo sida la sheegay xiriir toos la leh kooxda Al-Shabaab. Madaxweyne Xasan Sheikh ayaa istiraatiijiyadda dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab waxa uu farta ka saaray taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad, taasoo niyad jabisay jananka ugu sarreeya ee ciidamada xoogga iyo saraakiisha ku jirta dhammaanba ciidamada qalabka sida. Mahad Salaad ayaa xoguhu waxa ay sheegayaan in uu xiriir toos la leeyahay kooxda Al-Shabaab, waxaana la sheegay in isaga iyo Mahad Karatay oo ah ku-xigeenka guud ee hoggaanka Al-Shabaab mar waliba ay ku wada hadlaan khadka taleefanka, sidoo kalena uu la maleego khataraha uu Mahad Karatay iyo kooxdiisa ka fulinayaan qaybo badan oo ka mid ah gudaha dalka. Taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa hore ugu dhawaajiyay in Mahad Salaad wada shaqeyn weyn uu la leeyahay kooxda Al-Shabaab, sidoo kalena uu u fududeeyo qaraxyada ay soo geliyaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Mahad Salaad inkastoo warkaasi uusan ka jawaabin, haddana tan iyo markii loo dhiibay taliyaha NISA waxaa faraha ka baxay amniga magaalada Muqdisho iyo qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka, iyadoo oo Mahad Salaad tan iyo markii NISA loo dhiiban ay bateen qaraxyada ka dhacaya guud ahaanba dalka. Haddii uu is casilo taliyaha ciidamada xoogga Jenaraal Odawa Yuusuf Raage, waxa ay ka dhigan tahay in guud ahaanba ay fashilmi karaan dagaalada lagula jiro kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay kala wareegto dhammaanba deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada dalka. Madaxweyne Xasan Sheikh ayaa culays kala kulmaya beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed, kaasi oo ku aadan inuu xilka ka qaado taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad, oo la aaminsan yahay in uu wada shaqeyn toos la leeyahay kooxda Al-Shabaab. Mahad Salaad ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa uu fadhiyaa degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo uu sheegay inuu ka wado howlgallo uu kula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab, laakiin waxaa la aaminsan yahay in kooxda isaguba uu la shaqeynayo.